يا حافظا للذكر جئت لدارنا بالخير ثم استبشرت كل الدنا. ابني إياس أتيت نجما لامعا wax ka baro taariikhda Nabi Saalax alayhi salaam. Nabiyullaahi Saalax alayhi salaam waa nabigii labaad ee laga soo diro wadan Carab ah, wuxuuna ku aftirsadaa Sam ibn Nuux alayhi salaam. Nabi Saalax alayhi salaam waxaa loo diray qoomkiisii qoom Thamud, kuwaasoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u nimceeyay oo barwaaqo siiyay, waxayna ka samaysan jireen buuraha qusuuro iyo guryo si ay waqtiga iskaga dhumiyaan. laakiin sida caadada ahayd ayaga waxay degi jireen meel banaan ah ee teendhooyin ay ku dhisan jireen. nimcadaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay Thamud kumay shukrinin ee waxay samaysteen asnaam oo ay gacantooda ku sameeyeen ay caabudayaan Ilaahay qeyrkiisa. kadib Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu u diray Nabiyullaahi Saalax alayhi salaam si uu u digo oo noogu sheego jidka saxan ee ah inay Allah subxaanahu wa ta'aala kaligiis ay caabudaan. Nabi Saalax alayhi salaam markuu damcay inuu ugu yeero qoomkiisii reer Thamud Allah subxaanahu wa ta'aala jidkiisa toosan ay waxay yiraahdeen, Saalaxow niyo waxa doonaysaa inaan ka tagno ilaahayaasheenada oo aabayaasheenada hore u soo caabudi jiray. kadib waxay yiraahdeen, adiga ma tihid rasuul iyo nabi ee waxa tahay bashar anagana la mid ah ee hadalka ma dhageysanayna dhaaf. kadib Nabiyullaahi Saalax alayhi salaam wuu ka cajisay inuu dacwada sii wado ilaa ay dad fiican ay ka soo raacaan. reer Thamud waxay arkeen Nabi Saalax alayhi salaam inuu diintiisa ay faafayso. kadib waxay yiraahdeen, sideen aan ninkan iskaga qabanaa? waxay ku tashteen in ay xujo ku xiraan, xujadaas oo ah qeyr macquul oo qof ilaadan sameyn karin. kadib waxay u maadeen Nabi Saalax alayhi salaam waxayna ku yiraahdeen, waxaan rabnaa inaan xujo ugu xirno, haddii aad ka baxsatona waan ku rumaynaynaa. kadib wuxuu yiraahday Nabi Saalax alayhi salaam, maxay tahay xujadu? markaasay yiraahdeen, waxaan doonaynaa dhagaxa yaalla magaalada dhexdeeda, dhagaxa weyn ayaan rabnaa in aad amarto inuu ka soo baxo hashaasoo ayadana riman oo weli ay dhal rabto. kadib waan ku rumaynaynaa hadday sidaas dhacdo. Nabi Saalax alayhi salaam Allah subxaanahu wa ta'aala ayuu ku kalsoon yahay. Allah subxaanahu wa ta'aala ayuu baryay, wuxuu yiri, ilaahayow ani iyo qoomkaygana kala saar, maxaa yeelay waxay ila yimaadeen xujo aad u adag. kadib Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu u waxyooday Nabi Saalax alayhi salaam, wuxuuna ku yiri, waxbaha ka walwalin, waana dhici doontaa in dhagaxaas uu ka soo baxo hashirimaneed. ayagoo wada joog ah ayaa waxay arkeen dhagaxii intuu gulgashay waxaa ka soo baxday hal ayadoo riman weli dhali rabta. kadib Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu kala dardaarmay reer Thamud inay hashaasi nabadgeliyaan. maalin ay ceelkaas ku lahaan doontaa, ceelka ayaga biyaha ka cabayaan ay maalin ku lahaan doontaa. maalinta ay biyo cabayaan maalintaasi caanaha ayada laga liso waxay wada gaarayaan reer Thamud oo idil. markay muddo sida ahaayeen ayaa raggii reer Thamud ahaa waxay u dul qaadan waayeen inay hashii hal maalin ay ceelka ka cabto. kadib waxay ku tashteen inay dilaan. nin la dhihi jiray Qataar ibn Salif ayaa dilay hashii oo uu ka taqallusay. kadib Nabi Saalax alayhi salaam markuu arkay inay dileen ayuu u sheegay inay la cadaabi doono ayaga 3 maalin. kadib maalintii ugu horeysay waxay soo kaceen ayagoo wajigooda yahay yellow oo ah jaallo. maalintii ku xigtay waxay soo kaceen ayagoo wajigooda yahay casaan. maalintii saddexaad waxay soo kaceen ayagoo wajigooda yahay madow. maalinta afraad Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu soo diray malakul Jibriil. kadib wuu ku wada qayliyay meesha ay ku wada daateen, way ku wada dhinteen. kadib waxaa la gooyay dhulka guddigood dhammaantooda. halaagaas kadib Nabi Saalax intii rumaysay Allah subxaanahu wa ta'aala wuu badbaadiyay. Nabi Saalax alayhi salaam wuxuu u guuray dhankaas Makka iyo xaramka, meeshaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku oofsaday.